وقابريا ووطني وقلكاتايا ووطني وقابريا ووطني kumanaan ka mid ah taageerayaasha baaxadda leh ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Burco waxaa saaka fagaraha khayriyada Burco kala hadlay mas'uuliyiin aad u tiro badan oo ka tirsan xisbiga wadani oo ay ka mid yihiin hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan xogayaha arrimaha dibadda ee xisbigaasi Dr. Fadal wasiirkii howlaha guud ee xukuumadda Riyaale Siciid Sulub xildhibaan waabeeyo xildhibaan Cabdilaki oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco oo iska soo casilay xisbiga kulmiye Munir Axmed Cigaal iyo waliba xubno ka mid ah maamulka heer gobol xisbiga wadani waxay mas'uuliyiintan dhalin hordhiisa ku sheegeen inta xisbiga lagu eedeeyo xamar iyagoo shacabkana u iftiimiyay in xisbiga kulmiye shacabka dhex dhigayo cadaawad kala qaybin isla markaasna soo faqayo boodo hore waxaan kula kooranayaa boodad aflagaada madaxweynaha waa xisbiga kulmiye ku dhajiyay magaalada Burco waxa ku taala berri maanta ka fiican war maanta dalka madagal saqaya ka socda maabaara ka jira oo meesha sinaaya gaarsiin waaya musabixi gaarsiinaya xisbigii guusha waa xisbigii isbeddeldoonka kulmiye markay guuldaraysteen waxay istubeen wadooyinkii waxay burburiyeen gaadiidkii waxaa la xidxidhayaa madaxdii xisbiga wadani warma muuse qaranka ku aaminaa war cabdiraxmaan u darayn mayna nafteenna ma u daraysanaa keegaata iyo jaarka iyo maaxa inagu leh rasuulkeena iyo inagu balamiyey jaarku inagu balamiyey soo maaha somalilan waa idinka way kortay way xidintaysatay miyaynu u baqaynaa lafdhabarta wadani waa idinka xabar miyaa taqaanaan cid ila geyn kartaa ma jirto kuyaa yaabay yuu ka yaabay qur'aan ha israacdo qaybintu ha dhacdo wadani wuxuu doonayaa somalilan barwaaqa oo loo siman yahay halka shalay jeegaan buu keenay Soomaaliya ma aqbalayna Soomaaliya adiga wada wasiir kamida baa shalayto halka kaga hadlay oo Soomaaliya noolaata laha Soomaaliland maqlayn kulmiye inuu dadka qaybiyo doonaya gabagabadii taageerayaasha xisbiga wadani oo maanta muulay kuwa xalka goostay ay horkaceen mas'uuliyiintan oo hogaaminayay Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo wasacad looga ku maray labada laami ee ugu dheer gudaha magaalada Burco khasafo cismaan magaalo warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Burco